waxaan halkan oo ah aqalka sare noogu yeedhay guddida khayraadka qaranka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka annagoo ah wasaaradda howlaha guud muddo 3 saacadood halkan waxaa ka socotay maanta su'aalo ay guddidu nagu weydiinaysay wixii aan u qabanay muddadii 6 bilood ahayd ee aanu maamulka wasaaradda howlaha guud gacanta ku haynay wixii noo qabsoomay iyo qorshaha wasaaradda runtii su'aalo badan iyo iswaraysi kadib guddida waxaan soo garanay in wixii howlaha ummadda loo hayo halka aan ka sii wadno wixii shuruuc oo ay jiraan shuruuc badan oo baarlamaanka ama sharci dejinta dalka ku jira oo muhiim ah aad iyo aad ugu muhiim ah waxqabadka wasaaradda howlaha guud in yadana nagala shaqeeyo naloo fududeeyo maadaama aanay wasaaradda ama hay'ad kasta oo dowladda ka mid ah aanay shaqeyn karin shuruucdii ay ku shaqeynaysay iyadoo aan markaa aanay diyaar u ahayn waxaa kaloo aan aad ugu faraxsanahay maanta inaan gutay waajib dastuuriya oo wixii aan ummadda u hayay dadkii ummadda matalayay ee halkan igu weydiiyeen igaga waraysteen igu kor joogteeyeen waa soo dhaweynayaa markastana diyaar baan u ahay waxaan u ballan qaaday guddida in markastoo ay wasaaradda u baahdaan oo si ay wax nooga weydiiyaan howlaha aan qaranka u hayno inaan u iman doono ajiibi doono uga warbixin doono nagu kor joogteeyaana si ay u dhacdo hufnaan inaan ugu shaqeyno ummadda